ka fikir inaad maalin toosto adigoo ogaanayo in qariirada bariga dhexe ee aad taqaanay gebi ahaanba isbedeshay subaxnimadii 28 Febraayo sanadka 2026 guuxa libaaxa ee Israa'iil ayaa hawada Tehran kula kulmay caradii weyneed ee Mareykanka taas oo ku dhawaaqday bilowga dagaal aanu dunida arag mid la mid ah tobannaankii sano gantaalo jibiyay nidaamka difaaca hawada hogaamiyayaal daqiiqado gudahooda lagu baabi'iyay sidee ayaynu ku gaarnay daqiiqadan sidee ayay saaxiibadii hore isugu bedeleen cadow dagaal oo jiritaan ah muuqaalkan waxaan si qoto dheer ah u quusi doonaa taariikhda waxaan falanqeyn doonaa dhacdooyinka saacadan taagan si aan idinku soo gudbiyo sheekada dagaalka aan cidna ku dhiiran inay magac u bixiso ilaa ugu dambeyntii uu ka qarxay dagaalka muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dagaalka u dhexeeya Iiraan Mareykanka iyo Israa'iil ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta ka hor inta aan halku dhigyadu noqonin dhimasho Ameerika ha ku dhacdo iyo dhimasho Israa'iil ha ku dhacdo xaqiiqadu waxay ahayd mid gebi ahaanba ka duwan sanadkii 1950meeyadii iyo 1960meeyadii qarnigii hore Iiraan markaas oo uu xukumayay Shah Mohammad Reza waxay ahayd tiirka ugu weyn ee saameynta Mareykanka ee gobolka xitaa waxay ahayd xulufada ugu dhow ee Israa'iil kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa ku noolaa Iiraan waxay ka qayb qaateen mashaariic dhaqaale iyo kuwo military oo aad u waaweyn ma rumaysan kartaa in Iiraan ay Israa'iil siin jirtay lacag gaaraysa 1.2 bilyan oo dollar si ay uga hesho qalab xasaasi ah sida gantaalada iyo diyaaradaha xiriirkaasi waxaa lagu tilmaami jiray mid aad u wanaagsan sida ay sheegeen mas'uuliyiin waqtigaas waxa Shah uu arkay Mareykanka gaashaan uu ka ilaalinayo midowgii Soofiyeed laakiin gadaash albaabadan xiran waxaa ka jiray caro sii kordhaysay oo ka dhex dhalatay shacabka kuwaas oo ka soo horjeeday nidaamka lagu tilmaamay kalitalisnimo iyo musuqmaasuq nidaamkan oo isku dayay inuu xoog ku geliyo casriyeenta reer galbeedka ah bulsho dhaqankeedu uu aad u dhoorsan yahay 1 Febraayo sanadkii 1979 diyaarad ayaa ka degtay Tehran iyadoo sida nin bedeli doona wajiga taariikhda Ayatullahi Ruuxullahi Khomeini 10 milyan oo Iiraaniyiin ah ayaa wadooyinka u soo baxay si ay u soo dhaweeyaan muuqaal lagu tilmaamay mid ka mid ah isu soo baxyadii ugu weynaa taariikhda boqortooyadii ayaa dhacday waxaa bilaabmay xilligii dowladdii Islaamiga ee Iiraan nidaam ku dhisan mabda isbedelku ma ahayn mid siyaasadeed oo kaliya balse wuxuu ahaa mid istiraatiiji ah oo dhammaystiran Iiraan isla markiiba waxay jartay xiriirkii ay la lahayd Israa'iil waxayna xaruntii diblomaasiyadeed ee Israa'iil ku wareejisay Falastiiniyiin uu hogaaminayo Yasser Arafat kadib waxaa dhacay dhacdadii qabashada 52 diblomaasiyadeed oo Mareykan ah waxaana la haystay 444 maalmood dhacdadan waxay noqotay midii ugu dambeysay ee qabriga ku rida xiriirka u dhexeeya Tehran iyo Washington waxay abuurtay nabar aan weli bogsoon ilaa maanta Iiraan si degdeg ah uma gelin dagaal toos ah balse waxay bilowday dhismaha gacmo iyo kooxo u shaqeeya kadib 1982 Iiraan waxay u dirtay boqolaal ka tirsan ciidamadeeda dooxaha Beekha ee Lubnaan halkaas ayay ku dhalatay ururka Xisbullah si ay u noqdaan madaxa hore ee la dagaalanka Israa'iil weerarada ismidaaminta ah ama waxa loo yaqaano istishhaadi ayaa bilaabay inay bedelaan xeerarkii dagaalka tusaale ahaan weerarkii uu fuliyay Ahmed Qaasim 1982 ayaa burburiyay xaruntii taliyaha militariga Israa'iil ee magaalada Tyre sanado badan gudahood isbahaysigan ayaa sii ballaartay si uu ugu darmo Hamas iyo ururka Islaamic Jihad ee Falastiin iyo sidoo kale maleeshiyaad ku sugan Ciraaq ilaa Yemen istiraatiijiyada Iiraan waxay ahayd mid cad oo qoto dheer macnaha ayaa ahaa haddii aad ku fikirtaan inaad na soo weerartaan anagu waxaan idinku weerari doonaa wakiiladayada ku sugan meel kasta sagaashamaadkii sirdoonka Israa'iil
ayaa ogaaday in Iiraan ay bilowday dadaalo ay ku doonayso inay hesho hubka nuclear-ka, taas oo noqotay khad cas oo ay Israa'iil iyo Mareykanka ku ballan qaadeen inay ka hor istaagaan in la dhaafo qiimo kasta ha ku kacdee. Toddobaadyo ka hor inta dagaalka weyn qarxin, Iiraan waxay ku jirtay xaalad kala daadsan gudaha ah. Dabayaaqadii sanadkii 2025 waxaa qarxay mawjado mudaharaadyo ah oo ugu waaweynaa tan iyo aas-aaskii Iiraan. Sababtu ma ahayn mid siyaasadeed oo keliya, balse waxay ahayd mid dhaqaale si weyn u saameysay qiimaha lacagta riyaalka Iiraan oo si daran u dhacday, sicir barar aad u sareeya iyo gaajo albaabada garaacaysa. Nidaamku wuxuu mudaharadyadan kaga jawaabay caburin dhiig badan ku daatay. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo toos ah u diray mudaharaadyaasha isagoo leh caawimaad way soo socotaa, iyagoo wadahadaladii ku saabsanaa nuclear-ka ay fashilmeen, isla markaana Tehran ay ku adkaysatay barnaamijkeeda gantaalada. Dunidu waxay ahayd mid neefta ceshata iyadoo sugaysa dagaalka soo socda. Saacadu waa 9:45 daqiiqo oo subaxnimo waqtiga Iiraan. Maalin Sabtiya waxaa bilowday dagaal in ka badan 200 oo diyaaradood oo Israa'iil ah oo ay taageerayaan gantaalada Mareykanka, cruise iyo missiles ee laga riday maraakiibta Mareykanka iyo diyaaradaha qarsoon ee B2 ayaa fuliyay weerarka cirka ee ugu weynaa. Weeraradu waxay beegsadeen ku dhawaad 500 oo bartilmaameed oo ay ku jiraan saldhigyo military, xarumo nuclear iyo xarumo dawladeed oo muhiim ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday bayaan muuqaal ah isagoo sheegay in ujeedadu tahay bedelidda nidaamka. Wuxuu ugu baaqay shacabka Iiraan inay dalkooda dib u qabsadaan, halka dowladda Islaamiga ee Iiraan uu ugu baaqay inay hubka dhigaan. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weeraradani ay ujeedadoodu tahay in si gebi ahaanba loo tirtiro halista jiritaan ee Iiraan ay ku hayso Israa'iil. Naxdinta ugu weyn waxay ka dhacday Tehran, halkaas oo ay gantaaladu ku dhaceen xarumaha dowladda, khaasatan xarumaha hogaamiyaha sare ee dalkaasi. 1 Maarso sanadka 2026, ilo sirdoon oo Israa'iil iyo Mareykan ah ayaa xaqiijiyay in meydka Cali Khamenei laga helay hoosta burburka. Weeraradaasi waxaa sidoo kale lagu dilay saraakiil sare sida Cali Shamkhani iyo xitaa xubno ka tirsan qoyska hogaamiyaha sare. Dalka ayaa galay xaalad faaruq hogaamineed, waxaana la sameeyay golo hoggaan oo ku meel gaar ah si uu u maamulo arrimaha dowladda iyadoo lagu jiro xaalad badbaado qaran. Laakiin jawaabta Iiraan ma aysan daahin. Iiraan waxay riday boqolaal gantaalo balastiig ah iyo diyaarado drones ah oo aan duuliyo lahayn. Howlgalkaas oo ay u bixiyeen ballanqaadkii afraad ee runta. Weeraradu kuma ekaan Israa'iil oo keliya, balse waxay sidoo kale beegsadeen saldhigyada Mareykanka ee dalalka Khaliijka. Gantaalo ayaa ku dhacay Abu Dhabi. Waxaa waxyeello soo gaartay hoteelada caanka ah sida Burj Khalifa. Sidoo kale waxaa la beegsaday garoomaha diyaaradda Kuwait City, Doha. Farinta Iiraan waxay ahayd mid cad: haddii anagu dhacno, qof walba ayaa nala dhici doona. Markii dagaal ku galay toddobaadkiisii labaad, colaadda ayaa sii fiday oo ku baahday dhinacyo badan. Dhanka Lubnaan, ururka Xisbullah ayaa si rasmi ah ugu biiray dagaalka 2 Maarso, taas oo ku qasabtay Israa'iil 3 Maarso inay bilowdo duulaan dhulka ah oo ay ku gasho koonfurta Lubnaan si ay u baabi'iso khatarta dhanka badda. Mareykanka, markab dagaal oo Iiraan ay leedahay, ayaa ku quusay Indian Ocean kadib markii markab quusa uu Mareykanku leeyahay uu weeraray. Dhaqaalaha adduunka, qiimaha saliidda ayaa kor u kacay in ka badan 40% kadib markii la weeraray maraakiibta, isla markaana la xiray marinka Hormuz oo muhiim u ah maraakiibta ganacsiga. Burbur aad u weyn oo soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha laga bilaabo Tehran ilaa Tel Aviv iyo laga bilaabo Dubai ilaa Baghdad. Warbaahinta rasmiga ah ee Iiraan, Fox News Agency iyo telefishinka qaranka ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay 40 maalmood oo borordiiq ah. Waxaa jirta istiraatiijiyad ku salaysan in la faafiyo awoodda siyaasadeed iyo midda military
unugyo u shaqeeya si madax bannaan. Dowladda Iiraan ayaa nidaamkeeda ku ilaalisay haddii madaxdu la waayo, qaybaha kaleeto waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka si aan joogsi lahayn. Tani waxay sharaxaysaa sida Iiraan ay u sii wadi karto riditaanka gantaalada balastikada ah. Kadib markii dagaalka in badan uu socday, gantaalada Iiraan waxay ku dhaceen dhammaan jihooyinka iyagoo isku dayay inay gobolka oo dhan ay ku jiidaan god dheer, taas oo bulshada caalamka ku qasbaysa inay joojiyaan dagaalka. Jawaabta Iiraan ma ahayn mid ku kooban Israa'iil iyo Mareykanka oo keliya, balse waxay sidoo kale ka dhigtay saaxiibada gobolka kuwa bixiyay qiimo weyn. Waxay duqeysay Iiraan saldhigyada ku yaala Kuwait, Bahrain, Imaaraadka, Qatar, Sacuudiga iyo Jordan. Weerarkii ugu horeeyay ee Mareykanka iyo Israa'iil ay fuliyeen waxaa ku dhintay arday gaarayo 108 arday oo joogay iskuul ku yaala magaalada Tehran. Bartamaha Maarso ee 2026, dagaalku wuxuu galay toddobaadkiisii saddexaad. Iiraan maanta ma ahan Iiraantii aad taqaanay. Waxay adeegsanaysaa awooddeedii iyadoo laga dilay madax badan, haddana weli way taagan tahay awooddii Iiraan. Laakiin su'aasha qof walba isweydiinayo, dhicitaanka dowladda Islaamiga ah ee Iiraan ma keeni doonaa xasilooni gobolka ah? Taariikhdu waxay ina baraysaa in dagaalada waaweyn ay dhammaanayaan, balse aysan mar walba dhammaan khilaafka adduunka. Daawade, nala wadaag aragtidaada qaybta hoose ee kumentiyada. Ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, lana wadaagtid asxaabtaada. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo beer si aad ula socotid muuqaalada dambe aynu soo gelino channelka. Mahadsanid daawade.